ugu horeyn waxaad soo furaysaa Google Chrome-ka si aad ugu ekaysiiso telefoonkaaga qaab kombiyuutar oo uu website kasta kugu ekaado qaab kombiyuutar oo ay isku waafaqaan kombiyuutarkayga iyo telefoonkaaga. Marka ugu horeyn waxaad soo furaysaa saddexda dhibcood, kadibna waxaad dooranaysaa meeshii desktop site ku taala saxaysaa, kadibna telefoonkaaga wuxuu u ekaanayaa qaab kombiyuutar oo muraayadii kombiyuutar ku yeelanaya, qaabka kombiyuutarkana uu shaqeynaya. marka wax waliba ay ku shaqeynayaan oo way soo waafaqaysaa hawshii. ugu horeyn waad salaamantiin dhammaantiin, kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaalkii ugu horeeyey oo aynu ku qaadanayno habka lacag looga sameeyo YouTube channelka. haddaba waxaynu qaadi doonaa si aynu lacag uga sameyno YouTube channelka, waxaynu qaadi doonaa 4 qodob ayaa ugu muhiimsan oo aad talaabo oo aad qaadi doonto si aad lacag YouTube channelkaaga uga sameyso. haddaba ugu horeyn si aad lacag uga sameyso YouTube channelka waxa aad u baahan tahay talaabada koowaad qaadaysaa inaad Google account sameysato. Google account ayaad sameysanaysaa oo aynu casharkan ku qaadan doono qaabka loo sameeyo. sidoo kale casharka labaad waxaynu ku qaadan doonaa habka loo sameysto YouTube channel. YouTube channel ayaad baranaysaa sida loo sameeyo, kadibna intaa markaad fahanto kadib qodobka saddexaad waxa uu noqon doonaa qaabka loo verify gareynayo channelkaaga. verify gareyntu waxa weeyaan sida aad u xaqiijinayso inaad adigu leedahay channelkaaga oo aad lambarkaaga ugu xidhiidhinayso iyo waxyaalaha oo partner aad u noqonayso qof partner ah oo YouTube-ka kamid ah. qodobka afraad waxa weeyaan habka loogu xiriirinayo AdSense account-ka. AdSense account-ku waxa weeyaan waa account-ka lacagta kugu dhacayso ee lacagta aad sameyso ay ku dhacayso ama ku ururayso weeyaan. haddaba talaabooyinka ayaynu qaadi doonaa. haddaba hadda waxaa inoo bilaabmaya kan ugu horeeya oo ah habka loo sameysto Google account. haddaba talaabada koowaad qaadaysa waxa weeyaan browserkaaga soo furaysa. qaab telefoon baan idinku ekeysiiyey maadaama inta badan dadku telefoon isticmaalayaan. marka talaabada koowaad qaadaysa waxa weeyaan Google Chrome-kaad soo furaysaa. Google Chrome browserka waxa loo yaqaano ayaad soo furaysaa, kadib bogan baad imanaysaa uu ku keenaya, kadib halkaas searching-ka Google-ka waxaad ku qoraysaa google.com baad ku qoraysaa. google.com marka aad qorto saad halkaa ku arkayso saad arday halkaa ku arkaysaa google.com baad qoraysaa. intaa kadib waad raadinaysaa google.com marka aad raadiso halkan uu ku keenayaa. haddaba halkaa yar ee aad halkaa ku arkayso buluuga ah ayaa waxaad ku arkaysaa soo gelid ayaad ku arkaysaa. haddii English uu yahayna waxaad ku arkaysaa, hadduu English yahayna sign in baad ku arkaysaa. sign in ayaad ku arkaysaa halka. hadduu English yahay sign in baad ku arkaysaa. haddaba af Soomaali buu hadda yahay soo gelid baad ku arkaysaa. kadibna soo gelida ayaad riixaysaa. intaa kadib marka aad soo gelid riixdo bogan buu ku keenayaa saad arkayso. kadib maxaa aad sameynaysaa haddii aad account leedahay Gmail account haddii aad leedahay halkan baad gelinaysaa Gmail account-kaaga iyo password-kaaga, kadibna horaad wadaysaa. haddii aanad lahayna qaabka loo sameysanayo waa anigan idin tusaya oo waxaad taabanaysaa halkan ay create account ku taalo. create account halka create account ay ku taalo markaad taabato waxaad kasii dooranaysaa for myself, taasaad dooranaysaa for myself. intaa kadib bogan buu ku keenayaa, formkan baa buuxi lagu dhahayaa. kadib maxaad halkan gelinaysaa magacaaga hore Mohamed baad gelinaysaa tusaale ahaan magacaaga hore, magacaaga dambe Mohamed Cali. haddaba Gmail-kaagu noocee buu noqonayaa tusaale ahaan wax yaroo sir ama naanaystaada oo kale mxd440 saasoo kale ka dhigaya tusaale ahaan. haddii la qaatay casaan buu soo saaray. imika wuxuu ku leeyahay username-kan waa la qaatay, marka waxaan leeyahay 555 baan raacinayaa 35 baan raaciyey. marka 35 markaan raaciyey saad arkayso uu iga aamusay, wuxuu yidhi lama qaadan. marka email-kaygu waa maxay waxa weeyaan mxd440@gmail.com weeyaan email-kaygi. marka Gmail-kaygu noocaas hadhow noqonaya mxd440 kadibna maxaad sii raacinaysaa hadhow Gmail-kaagii kuu raacaya @gmail.com baa raacaysa. marka saad arkayso hadda wuu iga ogolaaday oo lama qaadan kaa imika aan qaatay. intaa kadib maxaa aan sameynaya hoos ma soo daadegaya password-kan gashanaya. password-kaagu waa inuu 8 xaraf ka koobnaadaa oo qoraal iyo lambara iskugu jira. marka tusaale ahaan magacaaga iyo tirooyin yaryar oo wax yar oo siraad israacinaysaa. marka password-kaygii ma gelinayaa. kadibna haddana mar labaad baan ku celinayaa password-kan halka sare geliyay, halkan hoose mar labaad ku celinayaa.
intaa kadib saad arkayso halkan baa taabanaysa ay ku qoran tahay kan ku xiga. haddii English uu yahayna next baa halkaa kuugu ooleysa next, haddii af Soomaali uu yahayna kan ku xiga ayaa kuugu ooleysa. marka kan ku xiga ayaan riixayaa. haddii English ay tahay halkaagu English sheegay next baa soo baxaysa. marka meesha yare bluega baad riixaysaa. intaa kadib maxaa soo baxaya halkan buu ku keenaya. intaa kadib wuxuu ku leeyahay lambarkaaga geli buu ku leeyahay. haddii telephone number aad haysato telephone numberkaaga geli. intaa kadib telefonkaagaad gelinaysaa. tusaale ahaan wadankiibuu kuu soo saaray. kadibna maxaad gelinaysaa waxaad ka bilaabaysaa un furaha shirkadaada ka bilaabaysaa. tusaale ahaan waxaad gelinaysaa 6184216131 saasoo kale aad u gelinaysaa. tusaale ahaan furaha shirkadun baad ka bilaabaysaa. haddii Telesom yahay 63, haddii uu yahay Somtel 65, haddii uu yahay Golis 90 baad ka bilaabaysaa. saasoo kale. marka hadda waan geliyey ku xiga baan taabanaya halka ay ku taalo. kadib ku xiga marka aan taabto saasoo kale fariin buu kuu soo dirayaa. fariin xaqiijin ah oo uu ku leeyahay fariin baan kuu soo dirnay si inaad adigu samaysanayso lambarkan leedahay loo xaqiijiyo. fariinta telefonkaaga kusoo dhacday message-ka fariinta ku qoran qoraalka ku qoran ayaad halkan gelinaysaa. markaa kadibna saasuu kugu xaqiijinaya. marka arday saad arkaysaan hadda waan geliyey waxaan geliyey fariintii ii soo dhacday waa taa waan geliyey. marka maxaa ii soo hadhay in aan istabada ama tallaabooyinka ku xiga aan qaado. kadibna maxaan taabanayaa verify baan taabanaya halka ay ku taalo. intaa kadib wuu ii verify garaynayaa. saad arkayso wuu verify gareeyay lambarkaygii wuu xaqiijiyey. kadibna muxuu ii weydiiyey bogan buu ii keenay kale bogan buu ku keenayaa. kadibna maxaa halkan ku yaala waxaad gelinaysaa halkan email gmail hore oo aad lahayd ama email hore oo aad lahayd haddii uu jiro halkan baad gelinaysaa si aad ugu isticmaasho hadhow toole haddii aad ilowdo passwordka ama uu kaa lumo oo aad hadhow toole xaqiijin ugu isticmaasho. oo haddii passwordkaaga aad ilowdo xaqiijin aad ugu isticmaasho fariin baa lagu dirayaa emailka hore ee aad lahayd ama emailka qofkaad aaminayso ayaad gelinaysaa. kadib fariin baa lagu dirayaa fariintaa kuu soo dhacda ayaa lagu xaqiijinaya haddii passwordka hadhow aad ilowdo oo kale tusaale ahaan. marka qof aad aamini karto emailkiisaad gelinaysaa halkan ama adigu gmail kaloo leedahay haddii uu jiro ayaad gashanaysaa. saasaad samaynaysaa. markaa tusaale ahaan waxaad gelinaysaa calin.com@gmail.com. kaa haddaad gashato xataa waa mid aad aamini karto kaaba haddaad gashatay xataa. markaa saasoo kale aad u gashanaysaa. markaa kaasaan gashadaanu calin.com@gmail.com intaasaan geliyey. markaa maxaa igu xiga maalintii aad dhalatay ayaad gelinaysaa halkan. maalintii aad dhalatay waqtigii dhalashadaad gelinaysaa. maalintii aan dhashay waa 23 tusaale ahaan baad kasoo qaadaysaa March tusaale ahaan 1997 saasoo kale. da-dii aad dhalatay weyn saasoo kale aad u gelinaysaa. halkan waxaad gelinaysaa gender nin iyo gabadh waxaa tahay baad gelinaysaa. haddii aad gabadh tahay female baad dooranaysaa female. markaa taariikhdaad gelinaysa dhalashada waa mid wayna noqotaa midda saxda ee ID cardkaaga ku qoran. marka female iyo male keebaa tahay nin iyo gabadh. marka male baan ahay tusaale ahaan saasaad oranaysaa. kadibna maxaad samaynaysaa kadib markaa inta aad dhamayso halkaa kan ku xiga ayaa taabanaysaa. haddii uu English yahayna next baa kuu soo baxaysa next. imika laakiin af Soomaali weeyaan kan ku xiga ayaa taabanaysaa halkay ku taalo. intaa kadib maxaad samaynaysaa waka bogan buu ku keenay wuxuu kuu tilmaamayaa waxyaalaha kale ma garanaysaa uu leeyahay Google-ku. marka skip baad oranaysaa. kuwan kale miyaad rabtaa inaad samaysato buu ku leeyahay oo lambarkaaga lagu xidhi skip baad oranaysaa halka ay ku taalo. kadib markaad skip tiraaho wuxuu ku leeyahay shuruudahayaga miyaad nagu raacday mise nagumaad raacin. I agree baad leedahay halka ay ku taalo. meesha yar baad riixaysaa. intaa kadib I agree markaad tiraa halkan uu ku keenayaa. saad arkayso bartaayar buu soo dhigayaa inaad Google account samaysatay. Google account inaad samaysatay markiiba halkii yarayd ee banaanayd ayaad ku arkaysaa. imika kuryar baad ku arkaysaa oo ama magacaaga xarafka ugu horeeya oo kale ah. markaa saad arkayso sanoo kale kuugu soo saarayaa. waxaad arkaysaa magacaygii oo Gmail account baan Google account ma samaystay. marka intaa kadib maxaan sameynayaa haddaba intaa kadib Google account hadda waan leeyahay. Google account baan hadda samaystay. kadib waxaan ku xigsiin doonaa in aan YouTube channel samaysto
ayaan ku xigsiin doonaa insha allah. markaa muuqaalkan xiga si fiican u daawo, si fiican ula soco. aad baa u mahadsantay.